Bismillah, waxaan bilaabanaa qaabka loo develop garanayo electronic commerce-ka. Markooda waxaan laga rabaa inaan sameyno wax la yiraahdo sampling inaan soo kicino Apache ama iskuulna start raadaan. Maadaama aan ku shaqeynayno local host, waa inaan hubinaa in marka koowaad labadaas ay yihiin active ama ay started yihiin. Labada marka aan dhamayno waxaanu bilaabanaa insha Allah inaan markaa إنه database كأنه سمعنا. So in database كو سمعنا حنكون local host intervention. بعدما local host قرنه حنصير دورنا ونتجنا PHP my admin. PHP my admin حنوفر ذا الساعة إن أنا سمعنا database. مكان كاسون حنوفر كريد كلامنا database كا إنه كده جنتو على back end دقة حقرتي حكتي أوكي دنيس. اوكي وانا نيو دورتا سي ان داتابيس عصوب سميه اوكي فيلك عصوب سمين دون حلالان دونا سمي داتابيس كينا سمي ما كرغنيا حدا دونت مقع داتابيس كا يا مقع فيلك عاد بخنيس واد كلا دوي كريسا اوكي waxaad sameynaysaa failka waad copy garanaysaa waxaad dhex dhigaysaa local host sampi htdocs baad dhigaysaa halkaasaad fail ku baasti garanaysaa waa inaad hubisaa failku inuu dhammaystiran yahay marka aad soo baasti garaysid okay waxaan sameynaynaa markaa inaan configuration-ka aan bilowno oon isku xidhno sampigeennii iyo database-kii in u sameynay iyo wordpress-kii okay marka local host waxaan qorayaa folderka magaciisii oo sami aan bixiyey enter baan oranaya marka sidan oo kale cilad soo baxdo waa in aad hubisaa in failka aad soo qaaday magacaad u bixisay iyo magaca database-kaagu aan isku khasab ahayn isku noqdo laakiin waa in failka aad hubisaa magacii aad u bixisay magaca failkana maxaa la yiraahdaa sima okay dib baan noqonayaa folderka magaciina waxa la yiraahdaa sima click baan siinayaa that means waa inaad saxdaa wordpress-ka aad doonaysid in aad ku shaqaysid oo ku noqonaya kan ku dhex yaala sida sampiga ka sii dhex yaala okay hadaba halkan shan shuruudood baa inoo muuqda shanta shuruudood waxa weeye kow database name ma leedahay yes database name waan samaysanay oo maxaan ku qornay sami waan ku qornay database-keeni waa inaga sameynay magaciisa waxaa la yiraahdaa database-ka sami baa la yiraahdaa okay username database username ma leedahay yes database username waxaa la yiraahdaa root baa la yiraahdaa okay kidii marka root ka isticmaalna waa default name-kii iyo magacii normalka uu watay waxaan kala isweydiinaynaa database password inaan leenahay database password-kuna wuxuu noqonayaa inbit buu noqonayaa maadaama aynu password u sameyn okay markaan hubino inaynu database-ka aan isticmaalayna aanu lahayn wax password tusaale ahaan inagu kan hadda waxaan gelinaynaa waa default password marka laga hadlayo database-ka ama aan leenahay wordpress-ka almost waxa weeye malaha wax la yiraahdo password that means waa plank haddii aadan adigu marka hore aadan database u sameyn halka uu ka soo kacaya database-teena waa local host ka soo kacaya okay marka waxaan bilaabaynaa let's go waxaan bilaabaynaa inaan buuxino shuruudaha okay wordpress-ka halka waxaan gelinaynaa database name-kan maxaan bixinay sami baan bixinay database-keeni username waxaan ku sheegnay inuu yahay root oo macnaheedu kan isticmaalna username database-ku yahay sampiga aan wax password ama username total aan lahayn okay password wuxuu noqonayaa blank password in between ka dhiganaa ama waynu faaruqaynaa okay database-keenu wuxuu ka soo kacayaa local host that means waa sampiga local host ka soo kacaya submit baan oranayna wuu ogolaaday alright muxuu yiri run the installation okay halka waxaan ka buuxinaynaa oo aan ku guranaa information-ka site-ka magacana bixinayna tusaale ahaan www haddana doonno waxaan ugu magac daraynaa database-kana sami.com username waxaan ka dhiganaa admin marka username-kaas wuxuu noqonayaa kan aynu ku geli doono wordpress-kana almost had iyo jeer username-ka iyo password-ka waa inay ahaadaan kuwaad garanaysid okay username waxa ka dhigay admin password-kana waxaan doonayaa admin inkastoo uu very weak yahay laakiin maadaama ay test aynu ku jirno
hadda haddii aad u baahatid passwordka waxaad gelinaysaa symbol number iyo alphabet si passwordka uu strong ku noqdo tusaale ahaan halka aan admin gelinay haddii aad u baahatid inuu strong noqdo hash at kadibna admin kadibna hash at muxuu noqday medium uu noqday anyway inagu in symbol waxaanu gelinaynaa uu fududaysanaynaa passwordka admin baynu gelinaynaa si aynu xasuusano maadaama uu wiilku yahay wuxuu kaa qaadayaa ogolaansho ah passwordkaagu inuu aad wiil ku yahay marka ma ogoshahay in passwordka sidaa uu ku yahay wiilka aad ku isticmaashid ama daciifka confirm baan oranaynaa ha hoos baan u tegaynaa halka waxaanu gelinaynaa email so haddaynu email leenahay waxaan iska oranaynaa sami at gmail hadhow waxaad gelinaysaa gmailkaaga runta ah si uu kugu soo diro dhammaan informationka hadday noqon lahayd passwordka hadday noqon lahayd recoverieska waxyaabahaas oo idilba okay install baan marka oranaynaa intaa marka aan dhamayno waxaan ku shubaynaa database waxaan leeyahay wordpresski okay waqti yar buu yara qaadanayaa intaas aan yara qabto okay wuu dhameeyey login baan oranaynaa marka halkan waxaanu gelinaynaa usernameki iyo passwordkana sameynay usernameki muxuu ahaa admin eedu capital tahay passwordkuna admin eedu capital tahay then waxaan oranaynaa login baan oranaynaa waxayna geenayaa marka halkaa usernameki passwordka markii dashboardkina dhex joogo markan aynu websitekeena dhisankiisa waxaa inoo muuqanaya template-ka default template-ka qaab ku yaalay magacaan gelinay waxba kuma jiraan almost marka waxaan sameynaynaa waxaynu isticmaalaynaa oo aan soo gelinayaa waxaan ku dadaalaya inaan ka bedelo teamka appearance-kan tegayaa waxaan dooranayaa themes waayo waxaan develop garaynaa electronical commerce marka waxaan isticmaalaynaa teamka la yiraahdo storefilla team baan isticmaalaynaa okay waan soo upload garanay upload baan oranayaa choose file kadib waxaan dooranaynaa tools storefilla okay teamku waa ka storefilla magaciisu waa ka storefilla waan soo download garaystay install baan oranayaa waan ku shubayaa marka okay waxaan oranayaa active garay themeka activated ka dhig baan oranayaa almost markaad active tirahdaan meesha waxaa soo gelaya themeka aad arkaysaan oo magaciisu yahay storefilla marka wuxuu ogolaanayaa in aynu alaabta productigeena aynu kusoo xayeysiisan karno in aynu u sameyn karayno waxa la yiraahdo product categories inuu u sameeyo alaabtu sida ay tusaale ahaan inta noocaad ka haysid category inta qaybood ay ku kooban yahay waxa la yiraahdo web product section buu sameeyaa web product section waxa weeye in la helo alaab walba ama product walba aad soo gelisay qiimaheeda iyo discount regular price-ka iyo sales price-ka qiimaha marka hore ku doonaysay discount marka aad samaysay qiimaha aad marka ku iibinaysay okay template-ka markii aan bedelay ama themeska temka waxa inoo soo baxaya waa maxay storefilla marka uu soo kaco qaabkaas u yaala storefilla marka uu soo kaco qaabkaas u yaala waxaan u baahanahay oo kaliya in aynu wax ka bedelno storefillaha aynu soo gelinay tusaale ahaan inaan sameyno wax la yiraahdo create garana pageski okay waxaan oranaynaa all pages baan oranaynaa si aan u aragno inta page waxaa ku jira almost laba page baa ku jira labada page baan delete garanaynaa marka labadaba waan select garanayaa waxaan tegayaa park action waxaan ka dooranayaa move to trash again maxaan oranayaa saan u delete garayo apply marka almost waxaan doortay halkii aan doonay inaan ka delete garayo halkan aan kasoo gelinayo marka new page add new page baan oranayaa si page cusub uu usoo galo website-kii okay page-ka cusub waxaan ku sheegayaa inuu page-kaasi yahay home page-ki almost home page-ka laba qaybood buu qaybsamaa qaybta waxaa la yiraahdaa title-ka la yiraahdaa qaybtana waxaa la yiraahdaa content ama detailed information kalka ay gelaysay wey hoos baan usoo degayaa waxaa jira wax la yiraahdo page attributes halkan marka waxaanu sheegaynaa maxaynu uga baahanahay in page-keena tusaale ahaan page-ka marka uu home-keenu inkastoo hadda wali aan refresh aan save garay home page-ka sample page-ka waxaa ku jira
wax la yiraahdo widgets ama sidebar marka waxaan u baahanahay in page-keena aynu ka dhigno page bannaan oo front page oo marka aynu dhig wax ku edit karayno marka waa inaan page ka dhigaa front page waa inaan ka dhigaa okay waxaan oranayaa publish baan oranayaa marka waxaan soo dhigayaa page cusub waxaan ka dhigay front page home okay refresh marka aan siiyo almost waxba isma bedelan wuxuu u baahan yahay in aynu tagno menus-ka kadibna aynu create garayno new menu marka waxaan tagayaa appearance waxaan ka sii dooranayaa appearance-ka menus-ka marka waxaan u sameynayaa meel aynu ka active garayno ama ka maamuli karayno dhammaan aan menus-ka create garayno okay anu bixino menu aan raahdo okay create new menu okay marka activated baan oranayaa add to menu waxaan ku soo darayaa menu structure-ka waxaan dooranayaa automatically in tabka ay ka soo muuqanayaan primary-gana loo ogol yahay haddii aad u baahan tahay in display location-ka uu soo saaro automatic pages haddii aynu pages cusub ku soo darno inuu si automatic uu soo daro ay inagu mar dambe aan oran add to menu ku soo daro okay waan soo garaynaa marka okay marka waxaan tagnaa inta markaan dhamayno waxaan tagnaa manage locations waxaan hubinaynaa in uu inoo dooran yahay ama inoo select gareysan yahay menu pages-keeni inuu inoo yaalo waxay tab menu inoo yaalaan inta marka aan dhamayno again maxaan sameynaynaa okay inta markaan dhamayno waxaan tagnaa home page-keeni home page-ka wuxuu tusay in uu yahay empty that means home page-ka waa faaruq innagana naga raba marka inaynu soo gelino any products marka aynu baahanahay in ay ka soo muuqdaan interface-ka website-keena and appearance-ka hore waayahay waxaanu bilaabaynaa marka inaynu soo gelino themes-ka number 1 in horta marka koowaad aynu home page-ka aynu ka dhigno default tusaale ahaan in static aynu ka dhigno city-kan tegayaa kadibna waxaan dooranayaa reading baan dooranayaa reading markaan doorto waxaan oranayaa home page waxa ka dhigtaa static page ka dhig mar walba oo website-keedu soo kaco tusaale ahaan mar walba aad website-ka soo baqatid home page-ka ka bilaabo shaqada that means mar walba website-ka la soo galo waxa soo kacaya automatically refresh marka la siino waxa imanaya waa maxay home page-ka soo kacaya marka home page-ka waxaan ka dhignaa static aan ka dhignay oo waxaan ku xidhnay website-keeni in mar walba la soo kaciyo uu home page-ka soo kaco okay inta kadib waxaan bilaabaynaa marka inaynu tusaale ahaan aynu soo gelino wax la yiraahdo customize-kii inaynu sawiradii aynu soo gelino oo ah teamka markaynu design-kiisa eegno teamka intiisa sare park sare muxuu ka kooban yahay sawir guud kow iyo laba sawir oo tab header-ka dhinac yaala advertisement-ka teamka marka si sawirka guud u soo galno waa inaynu create garanaa post category ama new post sameyna new post-ga waxaan ku sheegaynaa discount si marka hore uga soo muuqdo halka waxaan discount baynu sameynay oo ah 30% waxaan ku sheegaynaa for the new month bisha cusub darteed waxaan sameynay discount baynu sameynay okay halka marka waxaan soo gelinaynaa haddaan u baahno qoraan haddii kale maxaan u baahanahay inaynu new category sameyno new category-ga waxaan ku sheegaynaa halka hadhow la hoos keenayo dhammaan wixii discount lagu sheegayo okay waxaan oranaynaa over baan oranaynaa that means any discount waxay ka dhigan tahay over bay ka dhigan tahay new category baan sameynay okay waxaan soo gelinaynaa oo isna meesha laga maarmaan ah aan laga maarmaan ahayn in la keeno sawirkii okay marka waxaan laga rabaa inaynu sawirkii soo upload karayno okay sawirada waxaan tagnaa desktop waxaan tagnaa electronic commerce file okay waxaan soo qaadanaa marka sawirada sawir ku habboon baan soo gelinaa okay aynu doorano one picture ku habboon okay okay hal picture baan dooranay set a picture features kaasaan ka dhignay waan save garanaynaa marka publish baan oranaynaa okay postiga aynu sameynay wuxuu ka dhigaya wax walba oo arrimaha discount-ka ku saabsan mar walba aad doonaysid inaad alaab cusub discount aad soo gelisid halka aad ka soo gelinaysid waxay noqonaysaa postiga
new post waad oranaysaa category-ga ama meesha uu hoos imanayaa uu qayb ka noqonaya waxa weeye halkan hoose qaybtan ay ku qoran tahay offerka that means wax walba discount la xiriira offerkaas aad tigta saaraysaa okay website-keena waan tegaynaa waxaana customize program saynu active garano page-ka aynu hadda soo gelinay waxaan ka sii dooranayaa marka main panel section area kaasaan dooranayaa waxaan ka sii dooranayaa inuu slider u sameeyo maxay offerkii aynu sameynay oo sheegaya waa maxay discount-ka wala sawirku uu yaryahay waan ka bedeli karaa sawirka si sawir weyn uu u soo galo upload sawirka screen-kiisu aad buu yaryahay sawir loogu talagalay in uu noqdo okay sawir weyn aan soo gelino ayna u deeno iPhone-kaas upload okay aynu markaa update garana maadaama wax ka bedelay update buu nooga baahan yahay inta marka aynu dhamayno waxaan soo naxleeraado refresh baan saarnaa reload pooranayaa isaga laftigiisu ka saaraya dib buu nooga baahan yahay marka inaan u soo doorano main panel section area kadibna waxaan dooraneynaa category-ga aynu sameynay discount-ka oo ahaa offer yes waa kan publish baan oranaa waayo marka maxaan soo gelinay sawirkii weynaa ee guud ahaan soo geliyay template-ka haddaynu ku noqono teamkeena design-kiisa suu ahaa teamku wuxuu sheegayay in loo sameyn karo banner ay ku qoran tahay discount-ka aad samaysay iyo laba sawir ee hareeraha ka yaallaan okay labadaas sawir saan usoo dhigno marka aynu doonayno in aynu bannerka ama halka sare aynu soo dhigno halkaas aynu kasoo active garanayna okay si aynu haddaba u keenno promo ama header promo section-ka iyagana labada sawir halkan aynu kasoo gelinaynaa oo hareeraha ka dhigmay okay aan dib ugu noqdo website-kayga waxaan dooranayaa okay labadan aan qaadaya labada sawir okay labadaas aan qaadaya okay ka tagta saaran soo wareejiyo waan keena bannerka sawirka labaadna wuu soo galay kan labaadna aan soo qaado isagana carpetkaas waxaan leeyahay cartiga okay labadii sawirba kuwa soo galay labadii sawirba iyaga waxa laga soo gelinayaa customize-ka publish baan oranayna intaa marka aynu dhamayno waxay ka dhigan tahay in labadii sawirba ay inoo soo galeen website-keena markaan design-ka site-keena eegno almost waynu sameynay waxa la yiraahdo banner section iyo maxay promo banner section area ama header section-kii labadii way soo galeen waxaan u baahanahay marka inaynu soo gelino product category iyo product section-ka okay product category waxaa laga rabaa marka koowaad inaynu sameyno in ku soo shubno website-keena waxa la yiraahdo WooCommerce marka maxaan tagayaa mar walba aan doonayo inaan ku soo kordhiyo new software waxaan tagayaa plugin kadibna waxaan oranayaa add new waan oranayaa haddii aad internet-ka ka baaraysaan waad search garanaysaa WooCommerce maadaama aan internet haysan waxaan oranaynaa upload kadibna waxaan soo qaadayaa plugin-kii waan soo qaadayaa WooCommerce-ga okay tools aan dib ugu noqdo folder-ka aad dhex dhigatay aad ka raadinaysaa WooCommerce baad qoraysaa marka WooCommerce okay WooCommerce waa ka 3.5 hadda version-kii dambe uu soo baxay 3.5.2 laakiin anigu 3.5.0 waan isticmaalayaa okay markaa install baad oranaysaa markaad intaa dhamaysid waxaad install garanaysaa WooCommerce-gaaga okay marka uu dhameeyo installation-kii maxaad oranaysaa active plugin baad oranaysaa marka waxaad active garanaysaa electronical commerce kii ku ogolaanaya ama software-kii aad ku gureysay dhammaan product-iga qiimaha product-iga waxyaabahaas oo idilba okay activation-ku waqti yar buu qaadanaya saa u badnayn okay markuu activation-ka dhameeyo waxa soo baxaya form-kan ama wizard setup-kana soo baxaya waxaa laga doonaya marka inaan buuxino store setup-kii kow aynu alaabteeni iyo address-ka location-ka laga helay payment process-ka qaabka lacagta loo bixinayo haddii aynu sameynayno waxa la yiraahdo shipping ee alaabtana meelo kale laga soo dhiibayo
haddii aynu recommendation ama recommended waxyaabaha laga talinayo activation key almost marka oo dhan marka waxaan laga doonayaa inay lixda step buuxino halkan waxa ku qoran dalka haddaad doontid Soomaaliya waad qoraysaa oo ku soo baxaysaa address-ka ama location-ka joogtid halkan aad ku qoraysaa address-ka almost hal address hadaad qortid is enough halka address haddii aad qortid uu ka badan yahay SIM number-kii almost waxyaabaha soo idin baad halka gelinaysaa SIM number-ka waxaad gelinaysaa 252 kaas aad u doonaysaa almost location-ka aad joogtid burca jooga okay burcan geliye halka haddaba waxaa gelaya payment accept ama currency-ga aad gashay lacagta aad gashay okay sida caadada waxaan isticmaalnaa lacagta Mareykanka waxaan oranayaa US United Nation ama United States dollar-ka aan isticmaalnaa ama USD okay alaabta in iibinana planka waxaa noogu jira inaan iibino product and service alaabtii caadiga ahayd badeecadii iyo service labadaba tig baynu saaraynaa let's go baynu oranaynaa marka inta markii la buuxino let's go baynu oranaynaa okay payment-ga qaabka lacagta loo bixinayo wuxuu yiri PayPal account ma gashin lacagta lagu bixiyo account email-kaaga email-ka in sameeyay qornay inagu hadda ma baahan wax PayPal offline baan oranaynaa waxaan tagaynaa inaan active garayno wax la yiraahdo offline payments lacagaha sida offline-ka loo bixinayo oo ay ka mid tahay in check payments la sameeyo number 1 accept oranaynaa in la sameeyo bank transfer payments in qofku bangiisa lacagta soo wareejin karo okay cash on delivery salahan qofku lacagta ku soo diri karo sida caadiga ah hadda isticmaalo lacagaha mobile la sugu diro okay continue wana marka inta marka dhamayno waxaan u gudbaynaa process-ka shipping-ka isaga shipping-ka weyn oo fenorana waayo wax shipping hadda inaguma jiraan inaga waan ka gudbaynaa isaga recommendation-ka wuxuu noo recommend gareeyay wax la yiraahdo MailChimp waxa weeye email ay ku xidhan 16 milyan oo customer ah wuxuu ka anfacayaa in had iyo jeer si automatic uu email-ka campaign uu uga qaado xogta uu kugu haysiyo akoonka online baa lagu samaystaa isaga hadii aad u baahan tahay waad raadin karaysaa continue orana inta marka aynu dhamayno almost waxaan dhamaystirnay process-kii ahaa in aynu electronic commerce-ka aynu ku sameynaynay WooCommerce-ga skip baan oranay marka waxaan kale u baahan recommendation-ka almost waxaan ku noqonayaa marka visit to dashboard-ka inta markaan dhameeyo waxaan buuxiyay information-kii electronic commerce-ka baahan marka aad dhinaca dashboard-ka u nimaadno maxaa soo galay WooCommerce iyo products marka hore kama aysan muuqanin marka wixii product cusub waxaan soo gelinayaa waa maxay products baan gelinayaa tusaale ahaan hadda aynu ku soo qaadayna iibinayno alaabo badan oo electronics-ka alaabaha electronics-ka iibinayno waxa ka mid ah aan oranaynaa new product-ga mobile oo kale okay mobile marka in sheegno waa inaan halka gelinaa information-ka oo dhameystiran oo related la inta aynan hadda marka aynu sheegin product-ga cusub ee keenay waxaan u baahanahay guud ahaan horta inaan marka hore category aan u sameeyno noocyada iyo waxyaabaha aynu doonayno category wuxuu naga anfacayaa tusaale ahaan marka aad doonaysid in had iyo jeer aad sheegtid website-kaaga waxyaabaha lagu iibiyo tusaale ahaan dharka electronics-ka nooc walba ahaado kabihii waa inaad mid walba aad qayb gaar ah aad isagoo sawir feature aad u sameynayso okay tusaale ahaan waxaan iibinaa laptops baan iibinaa okay halka laptop baan ku sheegay Slack-ga almost isaga soo galay dib malaha hoos baan u diganaa parent category-ga hadda wax parent ma yeelanayo oo hoos marayo laakiin display tab-ka ku soo baxay wuxuu noqonayaa maadaama uu yahay waxa loo yaqaano product laptop yahay wuxuu noqonayaa products buu noqonayaa sawirka shayga aan iibino waa inaan soo qaadnaa upload baan tagayaa waxaan dooranayaa halkii ay sawiradu ku jireen oo ah e-commerce okay waxaan oranayaa laptop baan iibinaynaa laptopka sawirkiisa soo qaadaya waxaan soo gelinayaa halkii product category marka wuxuu ii fududeeyaa markaan add new category raado wixii la xiriira arrimaha laptopka inuu automatically igu sameeyo meel uu mar walba aan u baahanahay laptop iyo arrimihiisa inaan soo geliyo
inuu category u sameynayo. waxaan sheegay in website-ka tusaale ahaan category wuxuu ka anfacayaa waxay ka dhigan tahay boardka aad u sameynaysid meheradaada. waxaad ku cadaynaysaa waxyaabaha aad iibsid adigu. okay waxaan laptop baan iibinaa, waxaan kaloo oranaa waxaan iibinaa mobiles baan iibinaa, mobiladii. okay hoos baan u tegayaa, waxaan dooranayaa display tab-ka nooca uu noqonayo kusoo baxayo waa products weeye, sawirka mobilkan soo gelinaa. okay add new category baan oranaya marka. again maxaa soo galay mobiladii waa soo galay. haddii aynu iibinayno mp3 isagana waynu ku cadaynaynaa, ama waxa la yidhahdo mp3 music player baan oran karayna haddaan u baahannahay music player. okay hoos baan u tegayaa, waxaan ku cadaynaya inuu yahay product, isagana upload baan oranayaa faylka maadaama lagu jiro library-ga music ama okay music playerska waa kan in soo gelino isagana inoo soo gala kit dhammaystiran like waa example ma aha actualkii. okay add new category waan oranayaa. saddexdaa aynu tusaale ahaan aynu jeedno haddaynu ka kordhin karayno mar walba aad u baahan tahay alaab cusub. tusaale ahaan haddii aad boardkaaga aad wax cusub kusoo daraysid halka aad kaga soo daraysid hatta kaba sooqaad markii hore waxaad iibin jirtay mobilada laabtoonada iyo arrimaha electronicska, laakiin hadda waxaad bilowday inaad ku soo dirtid kabihii iyo dharkii ragga. waa inaad u samaysaa category aad ku cadaynaysid kabihii ragga inaad keentay shoes aad ku qoraysid main shoes, kadibna sawir ka mid ah kabaha aad soo gelin kartid si mar walba qof kusoo booqdo website-ka uu halkaa hore website-ka inta aanu sheegay qiimihiisa ogaan halkan ay uga soo muuqato waxyaabaha aad adigu iibsid. okay intaa marka aynu dhammayno waxaanu tegaynaa waa maxay widget-keenu ka maamulaynaa template-kan. appearance baan tegaynaa, widgets baan tegaynaa. widget-ku wuxuu noo ogolaanayaa in aynu website-keena aynu ka maamulno widget-ka. okay halka mar walba la dhigayo shayga centerka ka soo muuqanaya waa main block widget area. main block widget area waxay ka dhigan tahay centerka ama area-da uu ka yaalo template-kaaga design-ka aad doonayso inuu dhigmo. waayahay waxaan tegayaa laba qaybood buu qaybsamaa widget-ka. qaybtan waxaa la isku wada yiraahdaa qaybtan waxaa la yiraahdaa waxaa loo yaqaanaa active widget baa loo yaqaanaa. qaybtan waxaa loo yaqaanaa available widget. available widget waxay ka dhigan tahay waxyaabaha hadda dhex yaalla widget-kaaga active-ka aan ahayn laakiinse diyaarsan ee u baahan inaad isticmaashid. that means deactive bay noqon karaan. hoos baan u tegaynaa, waxaanu raadinaynaa wax la yiraahdo new category section. new category section-kaas wuxuu inoo sheegayaa ama inoo ogolaanayaa inaan helno alaabta aynu haynaa inay ka soo muuqato website-keena. new category-gaasaan soo qaadayaa, kor baan u soo baxayaa, waxaan tegayaa waa maxay main block-aan tegay, halkaasaan soo dhigaya. halkaa markaan soo dhigo waxaan sheegayaa waxa aan iibinayo, waxaan oranayaa electronics weeye. halkanna little main title-kan waxaan ku sheegaya latest product in it, alaabtii u dambeysay. waxyaabaha marka category ku jira aan iibinayo waxaa ka mid ah mobileskii, laptopskii iyo music player-kii. that means saddexdiiba waan soo geliyey, safe baan oranayaa marka. almost safe markaan raado maxaa soo gelaya waxa soo muuqanaya oo centerka ka soo muuqanaya wuxuu noqonayaa website-keena waxaa loo yaqaano markaan refresh siino category section-kii. almost arkaysaan waxaa soo galay laptop-kii. muxuu sameeyey maxaanu nidhi electronics baan ku sheegay halkaa inuu yahay latest product, alaabtii ugu dambeysay la keenay. maxaa ka mid ah laptop-kii, mobiladii, music player-kii. marka that means wax qiimahooda oo la socda ma jiraan, wax qiimaha oo la socda ma jiraan. markii aynu ku shubnay electronical commerce-ka waxa uu wataa 4 page buu wataa. 4taa page waxa ay sheegayaan account-ka, check out-ka iyo cards-ka qofku waxyaabaha doortay ama waxyaabaha doonayo. okay intaa marka aynu dhammayno waxaanu tegaynaa oo aynu ku noqonaynaa oo maalinta hore inoo marayay class-ku in aynu product cusub soo gelino. maadaama product cusub soo gelino kaba soo qaad laptop cusub baynu keennay, waxaan oranaynaa add new. internet-kaynu furanaynaa si aynu information uga helno through the internet ku saabsan laptopka HP-ga. okay google-ka waxaan ku qorayaa inaan raadinayo HP laptop baynu oranaynaa si uu inoo siiyo information ku saabsan HP-ga. okay
حاولنا HP laptops one laptop أنا example أنا بس هي okay أنا مت دورنا storage كاملة سن information خاصة بعضنا واي وحنا إيه إن product مركي إنه كملنا product مركي إنه كملنا وياهي اوكي halka waxa galaya marka waxaad ku sheegaysaa magaca laptopka noocu yahay modelkiisa iyo waxyaabaha lagu qaadanayo halka waxa galaya alaabta mobile tusaalaha laptopka aad soo gelisay isagoo faahfaahsan oo detailed information waxa dooranaysaa markii category-ga hoos marayo laptops hoos marayo maadaama laptop yahay waxaan isticmaalanaa product data waxa symbol halka waxa galaya qiimaha inuu ku doonaynay $7,000 waxa $700 laakiin hadda discount baan soo noolana waxaan ka dhignay $650 oo ka dhigan kan waxa weeye regular price-ki kana waa qiimeyn ku iibinayna weeye hoos baan u degaynaa marka halka waxa galaya alaabta faahfaahsan sawirka laptopka inuu kan soo gelino okay halka waxa soo galaya hoose waxa la yiraahdo product gallery tusaalahan inta nooc ama inta sawir aad ka haysid ee related kala ah ama laptopka sheegayso soo gelisay inta sawir aad ka haysid tusaalahan okay sawirada marka waxaan oranaa laptop waxaan ka haynaa HP inta soo sawir baan ka haynaa marka intaas in soo gelinayna waxaan intaas waa la qiimeyn noqonaysa okay intoodaas ba article leeyahay hal mar baan qaadaya saddexdii sawir baan soo gelinay hoos baan degnaa marka waxaan oranaa publish baan oranaa okay hadda haddaan ku noqono website-keeni haddaan shopka inuu dhex tagno shopka markaan tagno waxaan soo muuqday waxa soo galay laptopki waa soo galay waa maxay waa HP Core i3 70 Gen okay haddii aan u baahanahay few detailed information helena halka laakiin waxa yaala waa sales price qiimaha lagu iibinay iyo qiimaha marka hore la siinayo discount loo sameeyay mar walba inuu baahanahay inaan ku soo qorno kaas ka daba few detailed alaabta faahfaahsan tus qiimaheeda muxuu sameynayaa halkan soo gelinaysa qiimaha muxuu yiri HP waa ka nooc yahay waa maxay waa display-giisu waa inta qiimaha la siinayo waa ka waa information-kii oo kooban haddii information-ka faahfaahsan u baahanayna waa ka soo faahfaahsan lahayn soo inta nooc ka hay sawirada waa ka tusaya halkaas related pictures ka laga tusaya mar walba markaad u baahantahay adniyo productaas aad kaga soo kordhinaysaa markaan u baahanahay marka in home page-keena uu ku soo muuqdo adniyo productaas maxaan sameeynaa waxaan soo qaadanaa sidii aynu category section-ka u soo qaadnay appearance baan tagnaa kadib waxaan tagnaa widget-ka ama widgets-ka markaan tagno waxaan dooranaa woo product section baan dooranaa marka hore woo category baa ahayd laakiin hadda waa maxay waa woo product section baa la soo gelinay waa hadda waa product waa sheegay iyo qiimihiisa kor baan u baxaynaa marka halkii aynu markii hore dhignay category-ga baan product-gana hoos keenay marka maxaa soo gelaya waxaan keenay trending baan oranaa latest product okay waa latest product number hadda hal xabad ku jira laakiin inta haddii ay ku badan tahay tusaale inta xabad iibinaysid aad doonaysid inaad ka soo muuqato inta xabad halka xabad galnay okay save baan oranaya save marka aan raahdo automatically marka aan website ku noqdo aan raahdo refresh for the website appearance waxa iska bedelay aan hoos u tagno marka waxaa soo galay new inuu yahay laptopkaasi sel la iibinayo qiimihii aynu ku iibinayay iyo qiimaha marka hore ku doonaa discount ka sameeyay laptop qofka information ku baan halas ku soo dhifanaya that means waxay ka dhigan tahay haddii aad u baahatid inaad sii kordhisid product-ga halka oo baad sii kordhinaysaa okay intaas aynu ku jirnaa caawa xalay maanta. Assalaamu calaykum.